This is English. We see our own children and their families. This is English too. You got God, you got a friend, and that friend is you. But so is all of this. When I made that, it's something like in Florida called. He basically wanted to create a class. People still searching for this truth. More accessible, particularly for some of our colleagues. My drummer was with him last week. It is like a supernatural thriller. Yes, of course. I come back now. It's The English language comes in a variety of shapes and sizes, accents and dialects. Don't be ashamed of your unique version of English. Just speak. asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Ibraahim Aadam inta aynan u guda galin sharaxaadda muuqaalkaas aad soo aragtay waxaan rabaa inaan halkan dhammaantiin idinkaga mahadceliyo yani qofkii aanan mahadcelinin oo aanan wax yar u helaan ka mahadcelinin yani de qofkaasi qof abaal leh maaha marka waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo waxaan si degdeg ah ku gaarnay 5,000 6,000 hadda already 7,000 aan lagu halasi galina aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalka horan waad kala kiciyeen kana waxaan rajeynaa inaad kala kicin doontaan oo meel dheer aad gaarsiin doontaan sidoo kale waxaan rabaa muuqaalka inta aanan u guda galin in aan iclaamino oo aan sheegno wax aan ugu magac daray evolution ama maaragtay is-hormarin oo kale waa course ama adiga is-hormarin ayaan ku magacaabi karaa waxaan ugu talagalay in ay ka qayb qaataan 15 qofood 15kaas qofood waa in ay ahaadaan 15 qofood oo doonayo in ay sameeyaan practice yani qof hadli karo ayaan doonaya waxaan rabaa inay helaan practice yani muddo bil ah ayaan rabnaa in aan fiirino in dadka ay isku bedeli karaan practice-ka waxa ka dhiman inaad practice sameeyay so waxaan rabaa inay ila soo xiriirto dad gaarayo ilaa 15 qofood 15kaas qofood markii aan qaadano waxaanu la sameyn doonaa practice waxay heli doonaan muddo 20 daqiiqo ah oo practice ah oo kaliya ay English ku hadlayaan so 20kaas daqiiqo ayuu qofka heli doonaa practice ayuu sameyn doonaa English ayuu ku hadli doonaa waxaan si fiican ugu sii faahfaahin doonaa qofka markuu ila soo xiriiro kadib waxaan linkiga WhatsApp ka soo dhigi doonaa qaybta description-ka ama comment-iga ugu horeeyo ila soo xiriir ka mid noqosho 15 qof ee ugu horeysa ee ka qayb qaadato waa mahadsantahay haddaba haddii aan u guda galno muuqaalkeena maanta waxaan uga hadlaynaa yani inaysan waxba ka qaldanin accentigaaga there is nothing wrong your accent wax ka qaldan malaha accentigaaga yani dhammaan dadkan aad soo aragtay oo dhan mar kale muuqaalkee la daawo This is English. We see our own children and their families. You got God, you got a friend, and that friend is you. When I made that, it's something like in Florida called. He basically wanted to create a class. People still searching for this truth. More accessible, particularly for some of our colleagues. My drummer was with him last week. It is like a supernatural thriller. Yes, of course. I come back now. It's The English language comes in a variety of shapes and sizes, accents and dialects. Don't be ashamed of your unique version of English. Just speak. dhammaan dadkan aad soo aragtay waxay ku hadlayaan English haddaba adiga Englishka aad ku hadlayso sideed macnaha naftaada uga dhaadhicisay waxba ka qaldan bulshada hadii aad la dhaxgasho ama ay kula yaabaan qaabka aad u hadlayso no muhiimadda taas ma ahan muhiimadda waa in la fahmi karo waxa aad ku hadlayso iyo in aad adigu fahmi karto dadka kaleeto soo marba hadii ay dhacdo in lagu fahmi karo ama waxaad sharaxaysa la fahmi karo adigana aad fahmi karto waxa lagu sharaxayo then that's all iyo sidoo kale inaad wax akhrin karto aad qori karto soo dadka qaar ayaa waxay ku leeyihiin yani markaan bulshada dhex galo ama dad kaleeto ajaanib aan dhex galo accentigayga aan ku hadlayo waan ka xishoonaya yani qaabkaan u hadlayo waan ka xishoonaya way xishoonaysaa qof kasta accent ayuu leeyahay waxaa jiro American accent waxaa jiro British accent waxaa jiro yani Nigerian accent waxaa jiro Indian accent Russian accent Europe taxta waxay ku hadlaan accent nooc kala soo marka muhiimadda waa inaad maaragtay lagu fahmi karaa adigana aad wax fahmi kartaa muhiimaddu waa intaas so accentigaaga Soomaaliga darabtkood yani anagu laftirkan waxaan leenahay Somali accent Soomaan anigaan kula hadlayo I don't know what kind of accent aan aniga leeyahay waxaan isdhihi karaa yani I create my own accent yani ma dhihi karo waxaan ku hadlayaa British accent ma dhihi karo waxaan ku hadlayaa American accent sometimes Somali accent ayaan ku hadlayaa laga yaabaa so I don't know what kind of accent I'm using muhiimadda ayaa waxay tahay dadka kale ma fahmi karaan anigana ma fahmi kartaa waa intaas oo kaliya so marka hadii accentigaaga aad ku mashquusho goormeed luqadii baranaysaa so hadii aad accentigaaga ku mashquusho oo aad xishooto wax practice ma sameynaysid waliba muuqaalkan wuxuu sidoo kale hordhac u noqon doonaa dadka ka qayb qaadan doono evolutionka aan sheegay dadka ka qayb
qaadan doono is-horumarinta aan rabo kooraska inaan hadda sameyno 15kaas qofood ee imaan doonta haddii aad ka mid tahay min fadlan accentiga aad ku hadlayso ku kalsoono soo marka haddii aad ka xishooto inaad maaragtay waxa aad ku hadlayso aad isdhahdid ama dadka kale kula yaabaan ama waxa ku hadlayso yani wax qaldan yihiin no marba haddii waxaan aabaratay ku hadal ha ka soo baxo waxa hadii kugu jiraan ayaa dhibaato noqonaysa soo marka ha ka soo baxaan isku day in aad hadasho isku day inaad dadka la xiriirto inaad practice badan sameyso sidoo kale isku day inaad ka mid noqoto 15kaas qofood muuqaalkan gabi ahaantiisa waxaan rabaa inaan kugu la wadaago oo sidoo kale aan fikrad idinka siiyo mindset-ka aad aaminsantahay yani accentigayga ama wax ka qaldiin accentigayga ama la yaaba something bla bla very accent hadarta xataa inaad hormariso marka hore luqadda baro kadibna hadhowti hadarta focus garay accent if you want laakiin is not that too important ina maaragtay accent waqti badan ku bixiso soo waqti badan accent uusan kaaga bixin marka ugu horeyso luqadda baranaysid luqadda baro and then if you want hadii markaas baahi u qabto kala asleedahay markan waa markii aad accentigaaga aad hormarin lahayd laakiin now is not the time of accent markan waa waqti aad luqadda baranaysay so accent waxba ku bixinin yani waqti intaas leeg ha ku sii bixinin muuqaalkan oo dhan waxaan rabaa inaan kula wadaago accentiga iyo sidoo kale inaan aad idinkugu mahadceliyo maadaama aad muuqaalka hore kala kiciseen sidoo kale kanaalka aad kor u qaadeen sidoo kale haddeertan waxaan idinka codsanayaa ugu yaraan hal shaqsi oo asxaabtada ka mid ah inaad linkiga kanaalka la wadaagto qaybta descriptionka u yaala ama share muuqaalkan u dheh muuqaalkana like ta ha ka hilmaamin waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan guuleysta assalaamu calaykum